waxaynu joognaa magaalooyin ku caan baxay nolol, farxad, qosol iyo weliba rajo. dhan weliba oo aad ka eegta hareerahaaga waxaad arkaysaa carruur ciyaarayso, qoysas dukaameysanayo iyo weliba doogga deegaanka. wax weliba waxay ku socdeen sidii la rabay ilaa laga soo gaaray maalin Isniin ah loona yaqaano maalintii halaaga. maalintani waxay taariikhdu ku beegneyd 6 Agoost 1945. waa maalintii ay dhalaaleen dadkii ku noolaa magaalada Hiroshima. waa maalinta ugu madow taariikhda casriga ah, waana maalinta ay geeriyoodeen in ka badan 70,000 oo qof, halka ay dhaawacmeen 140,000 oo ruux, isuguna jira hooyooyin, aabbayaal, carruur iyo weliba dad aan waxba galabsan. kadib kolkii uu Mareykanku ku garaacay nooc ka mid ah hubka nukliyeerka oo loo yaqaano atomic bomb. saddex maalin kadib, magaalada loo yaqaan Nagasaki ayaa iyadana lagu garaacay isla hubkii, weliba iyada oo aan wax digniin ah la siinin. waxaana halkaasi sida barafka oo kale ugu dhalaalay dadyow lagu qiyaaso tiradooda 74,000 oo ruux, misana u badan dad rayid ah. carruur badan ayaa naafo noqday, 100,000 oo qofna waxaa ku dhacay kansarkii ka dhashay shucaacii bambooyinka. deedna Mareykankii arrinkaasi sameeyey halkii uu ka shanlayn lahaa ayuu ku dhawaaqay inuu guuleystay, uuna yahay awoodda keliya ee caalamka kolkaasi ka jirto. dhab ahaantii Hiroshima iyo Nagasaki ma ahan keliya laba magaalo oo burburay, ee sidoo kale waxay ku suntan yihiin maalinta uu gubtay damiirka bani'aadamnimo, iyagoona astaan u noqday waa cusub misana argagax badan. saaxiibayaal, ku soo dhawaada muuqaal aan uga hadlayna sooyaalkii argagax badnaa ee dunideena ka dhacay qarnigii lasoo dhaafay, haatanna aynu ka joogno 80 sano. sidoo kale waxaynu muuqaalkeenan ku lafaguri doonaa haddii uu caalamku yeesho hal awood, wax uu ka samayn karo dalalka kale ee soo haray. tani waa sheekadii badbaadada, adkaysiga iyo weliba dib u soo noolaanshiyaha dalka Jabbaan. gacaliyayaal, inta aan gudagelin barnaamijkeena maanta, waxaan idinka codsanayaa inaad nagu soo biirtaan oo aad subscribe saartaan channelkeena. fadlan ha ilaawina inaad la garaysaan muuqaalkan oo aad gaarsiisaan saaxiibadiina. mahadsanidin. aroortii hore ee maalinimada Isniinta, taariikhduna ay ku beegneyd 6 Agoost 1945, hawada Hiroshima waxay ahayd mid buluug ah misana nadiif ah, ilaa ay saacaddu noqotay 2 saac iyo rubi oo waxaa hal mar isbedelay jawigii magaalada kadib kolkii diyaarad nuuceedu yahay B-29 kana soo kacday saldhig ku yaala jasiiradda Tinian, ayna wehliyaan 2 diyaaradood oo ah kuwa dagaalka lagu arkay hawada sare ee dalka Jabbaan. markii hore waxaa la daaray alarmigii magaalada si ay ciidamadu ugu diyaargaroowaan dagaal hawada ah. si saraakiisha ciidamada Jabbaan kolkii ogaadeen in raadarku wax uu soo qabtay ay yihiin 3 diyaaradood oo kaliya, durbadiiba waxay damiyeen alarmigii, sidoo kalena waxay joojiyeen inay ka shaqaysiiyaan hubka soo rida diyaaradaha dagaalka, waayo waxay aaminsanaayeen 3 diyaaradood oo kaliya inaysan geysan karin khasaare aad u fara badan. sidoo kalena maadaama uu yaray hubkii ay haysteen ciidamada militariga Jabbaan, waxay qabeen amar ah inay ilaaliyaan rasaasta iyo weliba saadka shidaalka. dhawaaqa diyaaradaha Mareykanka ayaa soo jiita dareenka dadka magaalada, inkastoo ay shacab fara badan u sii hayaamayeen goobahooda shaqo, halka kuwa kalena ay aadayeen goobahooda waxbarasho. wax walibana waxay u socdeen sidii caadiga ahayd ilaa la arkay baarashuud weyn oo ka soo dhacaya diyaaradda B-29. sama jirin qof garan kartay wax uu yahay baarashuudkaasi, waayo aad ayuu u dhalaalayay, ilbiriqsiyo gudahoodna wax uu baarashuudkii isku bedelay wax aysan filaynin caalamka oo dhan, oo waxaa hal mar hilaacay misana guduud iyo boor isku bedelay hawada sare ee magaalada Hiroshima.
shan ilbiriqsi kadibna waxaa la maqlay sawaxan, deedna waxaa burburay miyaaradaha guryaha iyo gebi ahaanba dhismayaasha magaalada Hiroshima. Lafihii iyo weliba maqaarkii dadka ayaa hal mar kala haaday, waxaana sida baruurta oo kale u dhalaalay dad fara badan oo ilbiriqsiga ka hor ku noolaa farxad iyo reereen. Qof weliba oo nool oo dhaqaaqi karay waxa uu bilaabay inuu u degdego caawinta qofka kale ee dhaawacmay amaba inuu ka cararo aaggaasi oo dhan. Dowladda Jabbaan ilaa iyo goorta ma oga waxa dhacay iyo sida ay wax yihiin. Hareeraha magaalada Hiroshima oo dhanna dab ayaa ka kacay, waxaana hawadii oo dhan qabsaday urkii dabka iyo carunkii dadka. 90% dhismayaashii Hiroshima waxay noqdeen boor iyo kuwa uu burburiyay cadaadiskii bamka. Dhowr saacadood kadib markii uu qaraxii joogsaday, waxay dowladda Jabbaan soo saartay war ku saabsan qaraxii argagaxa lahaa ee lagu xasuuqay Hiroshima. Sama aynan ogeyn hubka lagu weeraray magaaladaasi inuu ahaa mid nukliyeer ah, ilaa aqalka cad ee Mareykanka uu si bayaan u sheegay inuu weerar nukliyeer ah uu ka fuliyay dalka Jabbaan 16 saacadood kadib. taas oo ka dhigan in xitaa aynan dowladda Jabbaan aynan ogeyn weerarkii magaaladeeda lagu burburiyay inuu ahaa weerar nukliyeer ah. Bamkii lagu dhuftay magaalada Hiroshima ayaa lagu magacaabaa Little Boy, wuxuuna ka samaysnaa nooca uranium-ka 235, dhirirkiisuna wuxuu ahaa 3 mitir, dhaxroorkiisuna waxaa lagu qiyaasay 71 sentimitir, halka uu culeyskiisu ahaa 4400 oo kg. wuxuuna bamkani ku socday xawaare aad u sareeya, isagoona halkii ilbiriqsi ku jarayay in ka badan 700 oo mitir. xawaaraha dhawaqa qaraxana wuxuu ahaa mid halkii ilbiriqsi jarayo 3130 mitir. dhab ahaantii bamkani wuxuu nafta dhaafiyey in ka badan 140,000 oo ruux. shucaca ka dhashay qaraxanina wuxuu saameeyey in ku dhow 100,000 oo qof, isagoona waxyeelay dhismayaal gaarayo 90,000, halka uu dhulka la simay 60,000 oo dhismayaal ah. intaasi kuma uusan simin xasuuqii uu Mareykanka ka geystay dalka Jabbaan ee 3 maalin kadib ayuu haddana isla qaraxii oo kale ka fuliyay magaalada Nagasaki, wuxuuna tookadan isticmaalay bam uu u bixiyay The Fat Man, kana samaysan maadada plutonium 239. haddaba goortaasi wuxuu ahaa tirakoobka magaalada Nagasaki 240,000 oo ruux. si nasiib xumo wuxuu bamkani dilay in ku dhow 74,000 oo ruux oo rayid ah, isagoona burburiyay 36% dhismayaashii magaalada. maalmo kadib tirada dhimashadu waxay gaartay 143,124 ruux. heerkulka bambooyinkani ayaa lagu qiyaasay 3,870 ilaa 5,000 oo sentigrade oo ay wehlisay iftiinka bambooyinka, waxaana la sheegaa in xitaa ay dhalaaleen dad u jiray 250 mitir halka ay ku dhaceen bambooyinkani kulka ay dhaliyeen awgii. haddaba si guud waxaa dalka Jabbaan uga dilaacay cudurro fara badan, si gaar ahna waxaa labadani magaalo dadkii deganaa ku dhacay cudur loo yaqaano cataract of the atomic bomb, oo ilayskii ka dhashay iftiinkii bamka wuxuu indhatira dadyow fara badan. sidoo kale waxay shucaacii bambooyinkani kansar ku rideen kumanaan dad ah. dadkii ka badbaaday labadan qaraxna waxaa loo yaqaanaa hibakusha, oo afka Jabbaaneeska ku ah qofkii uu waxyeeleeyay bamku, oo xitaa haddii aynan waxyeeladu ahayn mid qofka ka muuqata jirkiisa, wuxuu ahaa qofkaasi mid ka takooran dadka oo la yaso loona arkayay qof naafa ah. taasina waxaa ka dhalatay takoor ka dhan ah dadkii ka badbaaday qaraxyadii, waxaana la gaarsiiyey heer ay jeclaysteen inay ku dhiman lahaayeen qaraxyada. inkastoo ay dowladda Jabbaan ay dadkaasi u qortay gargaar iyo weliba lacag gunno ah, haddana waxaa had iyo jeer waxyeeleynayay takoorka ay kala kulmaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. dhab ahaantii qaraxyadani keliya ma aysan gubin 2 magaalo, ee sidoo kale waxay gubeen riyada iyo mustaqbalka carruur iyo weliba dhalinyaro fara badan. waxaa intaasi ka sii daran, dadkii halkaasi ku dhalaalay waxay ahaayeen dad shacab ah oo ciidamada militari ee ku dhintay labadaasi qarax tiradooda aad bay u yareed. fiicnaan lahayd dhibaatadu inay intaasi ku ekaato. dhab ahaantii shucaacii ay sababeen bambooyinkani ayaa sii waday inay saameynayaan gobollada dalka Jabbaan oo dhan 10 sano oo kale. carruur badan ayaa naafa noqday, 100,000 oo qofna waxaa ku dhacay kansar shucaacii qaraxa awgii. Mareykan iyo xulufadiisaba
waxay bartilmaameedkooda koowaad ka dhigtay magaalada Hiroshima iyadoona ay ugu wacan tahay ahmiyaddeeda ciidan iyo mideeda dhaqaale. sidoo kale Nagasaki ayaa noqotay bartilmaameedkoodii labaad. burburkii ka dhacay halkaasna Japan isla markiiba isma aynan dhiibin. Imperator Hirohito ayaa ku qasbay dowladda inay aqbasho guuldarrada, halkaasina lagu soo afjaro dagaalkii labaad ee adduunka. gacaliyayaal, waxaa macquul ah inaad isweydiinaysaan maxay Mareykan iyo xulufadiisu u adeegsadeen nuclear-ka iyagoo weliba digniin xitaa u dirin dalka Japan. jawaabta oo fududse waa lama yaqaan. haa saaxiib, waa lama yaqaan, oo xitaa Mareykankii iyo xulufadiisii sameeyey arrinkaasi ayaa ka jawaabi waayay su'aashaasi, iyagoona ugu dambeyn yidhi kaliya waxaynu rabnay inaynu joojinno dagaalka. si haddii lagu celiyo su'aal ah dagaal miyaa lagu joojiyaa xasuuq mise wadahadal ayaa dagaal lagu joojiyaa, waxay Mareykanka iyo xulufadiisaba bilaabayaan inay indhaha caddeeyaan hoosna ay fiiriyaan. dhab ahaantii dhacdadani waxay bannaanka keentay naxariis la'aanta dowladaha waaweyn iyo siday u jecel yihiin inay ku raaxaystaan daadinta dhiigga iyo weliba xasuuqa masaakiinta. tanina waxay daaha ka qaadaysaa haddii ay hal dowlad maamul lahayd adduunka inay siday rabto ka yeelan lahayd dowladaha kale ee caalamka ka jira, waayo waxay aamini lahayd inay u yihiin addooman iyada ka hooseeya. ugu dambaynna, haddii aad halkaan nala soo gaarteen, la jirkiina farxad ayay noo tahay saaxiibayaal. inta aan barnaamijka xigay kaga kulmi doonana waxaan idinkaga tegaynaa dunidu waa dulqaad, dadaalkuna waa muhiim.